gaar ahaan Puntland waxa runtii muddadii u dambeysay dawladda Puntland ay ku jirtay dagaal iyo dirir ay rabto inay dadkeeda iyo dalkeeda uga dulqaado cadawga ku soo duulay ee arxanka daran. waxaan marka ugu horeysa halka rabaa inaan uga diro hambalyo ciidamada geesiyaasha ee Puntland qaybahooda kala duwan. sidoo kale waxaan rabaa inaan halka hambalyo uga diro xarumaha caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka guud ahaan iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan, haddii aan lahayd meediyaha, haddii aan lahayd dhalinyarada, haweenka iyo bulshada reer Puntland meel kasta ay joogaan, sida hagar la'aanta ah ay u garab istaageen howlaha sifaynta hilaac. waxaan sidoo kale halka rabaa inaan marka ugu horeysa u soo jeediyo in dadka reer Puntland ay sida ay isu kaashadeen ee Ilaahay idankiis uga dhabeeyaan inay dadkooda iyo dalkooda ka dulqaadaan culayska waayidii dambe saarnaa. marka ugu horeysa waxaan rabaa halka inaan tacsi uga diro shuhadadii dhiigooda ku daahirisay dadkii iyo deegaanadii cadowga u haystay. waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu jannatul firdaws geeyo. waxaan Ilaahay uga baryayaa kuwa dhaawac inuu u boogadhayo. waxaan Ilaahay ugu rajaynayaa eheladii iyo qaraabadii ay ka tageen inay samir iyo iimaan ay ka yeeshaan. waxay ahaayeen shuhado dhiigooda u shubay inuu dalkoodu u noqdo iyo dadkoodu ay xorriyad yeeshaan. waxaan runtii halka meel ay joogaan ciidamada Puntland ee geesiyaasha ah ku boorinayaa hawsha ay qabteen inay tahay hawl ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda caalamka iyo ummadda reer Puntland bay u ogtahay. ay karaamada dadkooda ku sugeen, ay muujiyeen geesinimo, ay muujiyeen lahaanshaha dhulkooda in cid walba oo ku xadgudubta ay diyaar u yihiin in ay ka saaraan. waxaan rajaynayaa Ilaahay idankiis hawshaas socota oo runtii hawl aad u baaxad weyn ah oo dadka reer Puntland oo dhan ay u midaysan yihiin inay noqoto hawl sidii loogu talagalay u fusha. waxaan rajaynayaa dhalinyarada iyo dadka magaalooyinka jooga ee gurmadka iyo dhiigga iyo garab istaagooda inay hawsha intaa ka sii wadaan. waxaan rabaa halka fariin inaan uga diro qurba joogta reer Puntland ee ku howlan siday u garab istaagi lahaayeen inay soo dedejiyaan howlaha ay ku jiraan, shirarka badan intay joojiyaan, ficil u bedelaan. xaalad adag bay Puntland ku jirtaa, ay keli ku tahay. dagaal weeye, waqti buu qaadan karaa, hawl culus baa socota, kharash aad u fara badan ayay dawladdu ay ciidanka la garab taagan tahay, hadday tahay saanad, hadday tahay sahay, hadday tahay dhaawac iyo daweynteeda. dhul aad u adag oo